subscribe deh channelka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh aan sii wadno qisadeena. markii ay Kongo ka xorowday gumeysihii Faransiiska ayaa dawladda Faransiisku waxa ay safiir u soo dirtay gudaha dalkaasi Kongo kaas oo xafiis ka furtay magaalada madaxda wadanka Kongo ee Kinshasa muddo sanad kadib markii uu shaqeeyay safiirka waxa la siiyay maalmo fasax ah oo uu ku nasto safiirkii intuu qalab wax lagu ugaarsado qaatay ayuu u safray mid ka mid ah keymaha waaweyn ee ku yaala gudaha Kongo isagoo ku dhex jira bartamaha keenta ayuu meel fog waxa uu ka arkay dad aad u fara badan oo meel taagan waxa uu u maleeyay inay yihiin dad isaga soo dhaweynaya balse waxa uu ogaaday inuu dhexda uga dhacay qabiil keenta dhex degan oo dadka hilibkooda cuna ninkii safiirka ahaa intay qabteen ayay qaleen hilibkiisana waa ay ku qadeeyeen dawladda Faransiiska markay arintaasi maqashay aad bay uga carootay waxayna ka dalbatay dawladda Kongo inay 100 milyan oo magdhow ka bixiyaan safiirkii ay cuneen kadib madaxweynihii Kongo ayaa shir jaraa'id degdeg isugu yeeray golihiisa wasiirada waxayna ka tashadeen sidii wax laga yeeli lahaa wasiirka maaliyadda wadankaasi ayaa hadlay wuxuuna sheegay in qasnada dawladdu oo dhan aysan ku jirin lacagtaas iyo wax u dhow dawladda Kongo tala ayaa ku cakirnaatay waxa ay sameysay wax kale waa ay kala garan weyday kadib go'aan ay ku gaareen inay waraaqad u diraan dawladda Faransiiska warqadaasna waxay u qorneed xukuumadda Kongo waxay aad uga xuntahay dhacdadii foosho xumeyd ee lagu cunay safiirkiini maadaama aysan dawladeenu awoodi karin inay bixiso lacagtaasi magdhowga ah waxaan idinka codsanaynaa inaad cuntaan safiirkeena dalkiina fadhiya. subscribe deh channelka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh.